waalid ummaddu waxay ku horumarto ma aha lacag fara badan iyo dhismayaal iyo teknolojiyad sida ummad kuma horumarto. ummad waxay ku horumartaa inay soo saarto jiil da'yar akhlaaq ahaan iyo diin ahaan dhisan mas'uuliyadana garanaya. kuwaas ayaa hormariya bulshada dhibkoodana xaliya. sidaa darteed cumar bin khataab radiyallahu anhu warda maalin maalmaha ka mid u saxaabada isagoo la fadhiyo xujeeyay wuxuu ku yiri tamannaw yani make a wish. riyadiina ii sheega maxaad jeclaan lahaydin tamaniya. saxaabo fara badan wax khayr la sheegan iyagoo leh waxaan jeclaan lahayn inuu ilaahay isiiyo gurigan oo lacag iyo dahaba si aan ugu bixiyo sadaqo ilaahay darteed. cumar markii dambe wuxuu yiri atamanna an akuna mil'a hada albayt rijalan mithla abi ubayda wa mu'aad ibn jabal fa astacmilhum fi ta'ati allah. hada macnihi saas oo kale waxaan jeclaan lahaa inuu ilaahay siiyo gurigan oy ku jiraan rag sida abu ubayda ibn amir ibn jarrah iyo mu'aad ibn jabal oo kale ah. sidaa darteed iyagaa waxaan u isticmaali lahaa taacada ilaahay. si kale haddaan u dhaho cumar wuxuu leeyahay ii keena jiil sida abu ubayda iyo mu'aad ibnu jabal oo kale ah iyagoo fara badan ii keena. iyagaa dhibka adduunka jira oo dhan xalin lahaa. sidaa darteed waalidow sida keliyan ka horumarin karno adduunka ma aha lacag iyo teknolojiyad ee waa inaan soo saarno jiil xambaarsan mas-uuliyad akhlaaq iyo diin. janaalka waalid legacy adiga lagu sameeyey kala soco muuqaalada kuwan oo kale ah. subscribe dha walaalaha muslimiintana la sheer garay. allaha awlaadiina inaga ina xifdiyo. wasalaamu calaykum waraxmat ullah.